Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer youtube soo dhadhawaada maasha allah waxaan rabaa inaan idinla wadaago cunno caafimaad leh canjeeradaas aa ujeedaan burka ma soo samayn waxyaalaha aan ka sameeyana videoga dhammaantiis baad ka wada arki doontaan insha allah soo dhawaada waxaan ku rahdaa meeshaan rabaa inaan idin sheego cunadaan idinku anfici doonta haddaad tahay dadka caloosha adag tahay ama aa haysatid ilmo yar oo calooshiisu adag tahay raacdan caawa maantayto caruurta yararka oo caloosha adag tahay ama caloosha fadhido hooyooyinka sidoo kale caajiska iyo calool adayga iyo waxyaalahaas oo dhan waxaa inuu kugu wacan waa cunooyinka burka ka samaysan oo ina fuurinayo fadlan aynu iska dayno alaabahan aynu tijaabino soo dhadhawaada haddaa nala joogto waa mahadsan tahay haddaa nagu cusub tahay subscribe-ka dhagdhag ka sii gambareerka dhalalow ka sii allahu barakaatu soo dhawaada hooyooyin say tihiin subax wanaagsan markayni anaha si fiican kusoo qacqacdeen waxaan rabaa saakin aan idinla wadaago quraac yar oo caafimaad leh energy leh calool fur lahayn maasha allah siiba ilmaha aad iyo aad ugu fiican marka waxaan ka sameynayaa waa canjeelo waxaan ka sameynayaa laabtinta taralkaas taala ujeedaan halkan waa boorashkaas waa baking powder waa cusbo yara waa wax yaro sokora waa ukun waa qorfe shiidan waaye kan iyo kanoo asna ah ujeedaan aad buu muhiim u yahay ilmaha yarka waa uu maxaan ku rahdaa anfacayaa nafaqooyin badan baa ku jirto ironkii baa ku jiro caruurta yaryarka markay tahay iyo mataqaanaa 6 bilood ilaa 12 bilood iyo wixii kasii weynba aad buu u fiican yahay aad buu waxaan ku rahdaa oo anfacaa soo hooyooyin oo idinkula talin lahaa haddaa ilmaha casho uga dhigi kartid haysan kartid meeshu yaallo marka qaarkood ama quraac uga tuuri kartid ama saano kale ugu samayn kartid hadda u samayn doono insha allah haddaada kan haysan laakiin kan keligiis waa kuu filan yahay kan keligiisna waa isticmaali kartaa boorashka keligiisa marka balaasta daawana insha allah barkelin saacan canjeerada u sameynayo iyo waxyaalahan ka sameynayo waxaan rabaa inaan ku shiido shiidadan mashiinka lagu shiidaan rabaa inaan ku waxeeyo waxaan rabaa qiyaasteeda inaan isticmaalo aan samaysanayo canjeerada aan sameynayo dhan waxaan rabaa inay noqdaan waxaan bur ku jirinin saa idin sheegay asxaabey waxaan la diriraynaa burka waxaan rabnaa inaan wax caafimaad leh cuno ilmihii markaan siino wax caafimaad leh ilmihii energy fiican buu yeelanayaa ilma caafimaad la noqonaya anagana waxaa noqonaynaa dad caafimaad leh maasha allah maahan inay ilmo keliya quraacdaan u fiican tahay laakiin qof walba ayaa cunaya qof walba bay wax taraysaa qof walba ama diet ku jir ama ku jirin mar walba waad caawinaysaa marka waxaa muhiima inaad ku darsatid qorfe shiidan aad caraftuu ku fiican yahay cunadii caraf fiican buu inta kuu siiyo baa cunaysaa ma dareemaysid inuu boorash yahay inuu wax kale yahay ma ku dhamayso ilmuhuna aad usii jeclaanayaan maxaa yeelay waxa afka u galgalayo ma lahaanayso waa shiidaysaa qorfahaasoo macaani caraf lehna wuu soo shiidanayaa marka waxaan ku darayaa ku cusbo yaraysa waxaan kaloo u baahanahay waa baking powder qaadada afkeeda ah intaas bisaan ku darayaa waxaan kaloo ku darayaa waa sokor yaro shiid ma raba inaa wada haafa isticmaala haafna waa reebaya asxaabi markaa waxaan isdhahay xoogaa yarna ku kordhisadaan raba ama waxaan isleeyahay maadaama aan raba inaa caruurta saaka muhiimkeedu yahay marka waxaa u baahan tahay biyo yar oo qandac ah hadba sida qiyaasta adiga inta kugu filan
laakiin muhiim waa inaysan kaa biyobiyoobin. Hadday kaa biyobiyowdo sheekadu waxaa waaye inaad u baahatid markaas bur yariis ah oo qaada ah iyo waxaad ku adkaysid. laakiin waa inaad isku daydaa inta tabartaada ah inaysan kaa biyobiyoobin. si yar oo fudud waaye isla markiiba kasoo tuuraysaa quraac yar oo fudud oo kaala istaaran. marka waa isku shiidaynaa. ujeedaan alaabteena isku soo dardarsanay. waxaan ku darnoo kale ma laha. isku shiiday. asxaabi waxaan dareemayaa inay biyo ku yar yihiin. marka waxaa rabaa inaan ku darsado wax yar oo biyo ah. biyaha baan ku daray. haddana waa isku shiidaynaa. asxaabi wataas waynase jilaac kaa noqon adagna kaa noqon dhexdhexaadkaas maasha allah ay ku tahay. maasha allah quruxdeeda waa aragtaan si u kala kacayso indhaheeda u leedahay. haddeeraan soo qasnay haddaan dubaynaa indhahay kacsan tahay si uu maxaan kula u indhaynaysa xaloo dhan in la garaacayaa moodaysaa inay bur ka samaysan tahay moodaysaa hal burana kama jirto oo inay caddaha waa ujeedaa. quruxdeeda macaankeedana haddii lama tirin karo lama sheegi karo. haddii ilmaha caloosha kaa adag yihiin waxaan kugula talinayaa inaad isticmaashid alaabtan. caloosha ayay aada u jilcisaa. calool adayga dhan way la dirirtaa. caafimaadna way tahay. ma ahan burkii caddaa oo caloosha ku fiirinayay. haddaa fiirisidna waa cunadaas maasha allah kaanada ah. marka bilis tijaabi marka Soomaaliya badanteena waa inaan iska daynaa burka cad iyo maxaan ku radaa bariiska cad iyo baastada aan feeraha iska saarayno. nafteena aan usoo jeedsano cunno caafimaad leh aynu cunno. balanteena waa quraac caafimaad leh cunno caafimaad leh jirkeena aan daryeelno. maasha allah waxaan idin leeyahay hooyooyinka kaca fadhiga caajiska iska daaya. waxyaalaha caajiska idin sameynaya waxaa kamid ah cunooyinka aan caafimaadka ahayn. maasha allah waxaan idin leeyahay soo dhawaada. fadlan hadaa hore noola joogteen like iyo share siiya iyo commentiga. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe channelkeena nagu soo biir asxaabtaada ku soo casuun. aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin. badanteena waa inaan isteekeel dareynaa nafteena daryeelnaa jirkeena daryeelnaa isnafaqaynaa. markaan gudaha kasoo nafaqayna ayaynu korka ka nuuri doonaa insha allah. waa mahadsan ilaahadana siiyano siyaad intaan haysana sii. asxaabteena qaaliga wada quraacano shaah yarna ku darso. waxaa ka dhiman kaliya oodkici maystiri aan oodkacayna inaan oodkici ku darsanaa ka dhimanayd. maasha allah sida saytuun yar iyo shaah yar baan ku darsanay. wayna saas quraacdeena wayna kaasaaka. horta yararka waxaan kugula talinaya inaan shaah ugu darinin caanahooda ugu dar. maxaa yeelay macaanka caafimaad uma aha ayaga umana roona. maxaan ku idhahdaa jirkoodana ma qaadan karo. marka asxaabta waxaan idin leeyahay carruurta yararka caanahooda ugu dar. saas ugu soo kala tuur. maasha allah quraacdiisa kabataas nala quraaco haddaa nala joogtay. haddii kalena noo soo dhawaaw kala nala quraaco. waxyaalaha caafimaadka soo gelin doonaan insha allah ka faa'iidayso.